بسم الله الرحمن الرحيم. halka waxa ka hadlaya dhalinyartii degmada Xuduun iyo qayb ka mid ah odayaasha waxgaradka deegaanka. kulankan wuxuu daaran yahay shirka ka dhacaya Djibouti nabad iyo nolol hogaaminayso iyo dawladda Soomaaliland. annagu haddaan nahay dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan u aragnaa shirkaasi inuu yahay shir aan laga hadlayn dadka waqooyi dhammaantiis oo dhan. waxaan u aragnaa inuu yahay shir gaar ah oo gaar u ah dadka dega gobolada Hargeysa iyo Burco loo yaqaan reer Sheekh Isaaq. marka annagu haddaan nahay dadka deegaanka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn annaga masiirka ummadayada ma matelaan cid annaga nabatasho halka tagtana ma jirto. waxaan leenahay dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sidaas oo ogaadeen halka shirka lagu hayaana waa shir aan gobolada Sool iyo Sanaagna Xuseyn aan Sanaag Xuseyn aan Sool Xuseyn aan Cayn Xuseyn. waa shir lagu maslaxayo ama lagu raali gelinayo Hargeysa iyo Burco. marka sahal loo ogaado وماسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxa ka hadlaysa shirkan sharaa'id ku qabatay waa dhalinyaradii degmada Xuduun oo ka tirsan gobolka Sool. haddii aan nahay dhalinyarada iyo odayaasha waxgaradka halkan isugu yimid waxaan ka hadlaynaa shirka Djibouti nabad iyo nolol ay kula shirayso maamulka Soomaaliland. maamulka Soomaaliland marka la yiraahdo waqooyi anagu waxaan nahay gobolada waqooyi bari Soomaaliya aan nahay. waxaan nahay dadkii ay ka soo jeeday gobonimada Soomaaliya halkii laga alkumay ilaa iyo maalintaana calanka madaxaan ku sidanay meel aan ku dhignayna lama sheegin. haddana nama quseeyo shirka halka ka socdaa waayo waxaan noo quseyn cidii Soomaaliya is hayaan baa la maslaxayaa anagu Soomaaliya ka mid nahay mana taageersanin annaga mowqifkeegu ka. assalaamu calaykum waraxmatullaah. bismillaahi raxmaani raxiim. halkani waa degmada Xuduun ee gobolka Sool. waxaan ku joognaa dhalinyaradii waxgaradkii odayaashii waxba hadalka badin maayo waxay ku kooban tahay inta raggii hore yiri haddaan say yar u baxo shirka Djibouti ka dhacay nabad iyo nolol iyo ama beesha Isaaq ama beesha ama Islam baa ku shiraya. annaga nama matasho beesha Islam maamulkaasi nama matalo dawladda Soomaaliya aanu si toos ah u hoos tagnaa weligeey ka mid ahayn midnimada iyo calanka Soomaaliya annaga weligeey u taagnay haddana taageersan laakiin beeshaas iyada adeeg xanuunka iyo caafimaadkeeda iyo waxay ka hadlayaan dawaab lahayn